bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey gudaha soomaalida iyo caalamka qodobada daawo doontaanna waxaa qayb ka ah waa sidee xaaladda magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal sidoo kale maxay yihiin jabhadan ku jira buuraha magaalada boorame oo saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xooggan bilaabay sidoo kalena qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha guda biirse oo halkaasi tegey maxay somalilan jabhadani ka damacsan tahay waxaan kula wadaagi doonnaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan sidoo kale maxaa ka jira in ay bilowdeen wadahadallo u dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro maxaase ka jira in madaxweyne cabdiraxmaan ciro waqti xaadirkan safar qarsoodiya uu ku joogo magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti waxaan kula wadaagi doonnaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan odayaasha dhaqanka beelaha gudubiirse iyo samaroon oo ku dhawaaqay dagaal toosa oo labadaasi beelood dhex mari karaa iyo beesha ciise oo si toosa u sheegtay in xeerka iyo buugga ciise looga xafladayn doono 14 bishan magaalada saylac ee xarunta gobolka salal haddaba waxaan kula wadaagi doonnaa xogta rasmiga dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ka jira saylac iyo sidoo kale magaalada boorama oo ammaankeeda boqolkiiba boqol uu soo laabtay ciidamada somalilan iyo dadka shacabka ah oo markan heshiinaya sidoo kale dowladda oo bilowday in adeegyada aasaasiga dib loo bilaabo waxbarashadii iyo sidoo kale dhammaanba miciishada quutuldaruuriga ah oo dib uga bilowday gudaha magaalada boorame ee caasimadda gobolka owdal haddaba waxaan kula wadaagi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan xilli weli calanka soomaaliya iyo calanka owdal state uu ka taagan yahay bartamaha magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal si guud waxaan warbixinno kala duwan kaa siin doonaa xaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka taagnaa qodobada kale ee xasaasiga ah daawo doontaan waxaa qayb ka ah madaxdii mucaaradka soomaaliya iyo siciid dani axmed madoobe oo magaalada nairobi kula shiraya madaxweynaha waddanka kenya ee william ruto haddaba soomaaliya ma la odhan karaa waa dal madax bannaan sababtan awgeed madaxdii mucaaradka ee doonaya in 2020 ay xilka la wareegaan ayaaba waxay ka kambeyn garaynayaan nairobi oo ay la shirayaan ama u yeeraya madaxweynaha waddanka kenya william ruto si lamida madaxda jubbaland iyo puntland iyaguna nairobi ayay gaareen halkaasi ayaana la filayaa in kulamo kala duwan ay ka bilowdaan waxaan kula wadaagi doonnaa xogihii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kuwaasi oo sheegaya in saacadaha soo aadan kulamada ay bilaaban doonaan qodobada kale ee soomaalida ka baxsan ee aad daawo doontaanna waxaa qayb ka ah 3 sargaal iyo sidoo kale 3 sargaal iyo 6 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa lagu dilay gobollo ku yaala xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan xilli la filayo inuu dib u qarxo dagaalkii u dhaxeeyay labada wadan Mareykanka oo arrintan doonaya inuu dhexdhexaadiyo iyo sidoo kale Taliban oo ku adkeysanaysa in wax garaba aysan siinin ama aysan shaqo ku lahayn kooxaha dhibaatada ka wada xadka labada dan haddaba waxaan kula wadaagi doonnaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaa daawo doontaan balse marka hore soo dhowaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqo saaxiibada ku xiran janaalka waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe keliya safarkeenna adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar janaalka mahadsanidin waa hagaag aynu ku bilowno sidaad ku soo aragteen muuqaalkan bilowgiisa weli duleedka magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo xooggan oo military waxaana qaar ka mid a isimada dhaqanka ee beelaha samaroon ay booqdeen xeryaha lagu diyaarinayo ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan jabhadda xoreynta galbeedka somalilan sida ay jabhaddu iyagu hadalka u dhigeen raggan oo qaarkood la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in ay furteen 2 xero oo ku yaala buuraha duleedka magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal waxayna sheegeen in aysan ka laaban doonin go'aanadooda ku aadan in gebi ahaanba somalilan laga xoreeyo deegaanada galbeedka si gaara gobolka owdal iyo salal sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid a odayaasha oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in askartan ay yihiin kuwo xaq u dirir ah sidoo kalena ay difaacayaan hantida dhiigga iyo shacabka reer owdal iyo guud ahaanba deegaanada galbeedka somalilan ilaa iyo haatan dowladda somalilan wax tallaabaha ma qaadin lamana oga wax ay somalilan ka damacsan tahay jabhadan lagu ururinayo duleedka magaalada boorame waxaana jabhadan ay soo bandhigeen hubka noocyadiisa kala duwan madaafiic qoryaha darandooriga u dhaca iyaga oo jabhadan la sheegay qaarkood inay ka soo goosteen intii ay rabshaduhu socdeen
qaybaha kala duwan ee ciidamada militariga Somaliland. Arrintan ilaa iyo haatan waa mid la yaaban yahay, waxaana xaaladda magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal haatan ay tahay mid boqolkiiba boqol degan. Dadka shacabka ah iyo ciidamada ayaa bilaabay inay dib u heshiiyaan. Sidoo kale ciidamadii ammaanka iyo kuwii gawaarida kala celinayay ee loo yaqaan traafikada ayaa lagu soo dhaweeyay gudaha magaalada Boorame, xilli weli ciidamada militariga aysan si toos uga bixin magaalada oo qaybo badan ay ka joogaan. Laakiin isu socodkii dadka iyo gaadiidka waa mid normal ah, wax kastana sidii hore ayay ku soo laabteen. Muuqaaladii ugu dambeeyay waxay muujinayaan sidoo kale in calanka Soomaaliya iyo calanka Awdal State weli ay ka taagan yihiin ama lagu xardhay qaybo badan oo ka mid ah magaalada, sida astaantii magaalada ee waxbarashada oo lagu bedelay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kan Awdal State. Dhalinyarada qaarkoodna waxay leeyihiin sida tan. waxaan leeyahay dee laba bas baan kala fuulay, ballanna waa maalinta ay isku dhacaan. saldhigga koowaad ee jabhadda madaniga ah, ciidamada madaniga ah ee beelaha Cismaan Muuse Abrayn ee Axmed Guray. waa saldhiggii koowaad oo maanta nagu soo booqateen. waxaan idinka mahad celinaynaa booqashadiina sida sharafta iyo karaamada leh aan ugu timaadeen. saldhigga koowaad ee ciidanku wuxuu diyaar u yahay inuu cadow kasta ku soo duula meel saaro iskana celiyo. intaa kadib waxaanu jaaniskan uga faa'iideysanaynaa inaan u tacsiyeyno walaalahayagii nala dareenka ahaa ee ku geeriyooday magaalada Boorama. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. waxaan sidoo kale uga faa'iideysanaynaa inaanu sheegno inaanu ugaaskii Ugaas Cabdirashiid, Ugaas Rooble, Ugaas Doodi gudoonkii uu gudoomay difaaca dhulka iyo deegaanka isagana inaan la qaadanay haddaanu nahay beelaha Cismaan Muuse Abrayn. sidaa darteed waxaan idin leenahay salal waa guutadii koowaad. laba guuto kale ayaad nala booqan doontaan insha Allah maalmaha soo socda. sidaa darteed waxaan idin leenahay waxaanu diyaar u nahay inaan difaacno dalkayaga, dadkayaga, maxastayada iyo maatidayada, martina aanan cid uga noqon. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أنا جيف عاقلك جودة بلها أبرين جودتي كوبادة بلها أبرين أيان صوب بوغني جودتي كلنا وان بوغني نهدو إلى كديجو جودتي كوباد أبرين قبل كسلل ayaan soo booqanay Axmed Guray. way ku mahadsan yihiin sida ay noogu soo dhaweeyeen goobtooda, aad bay ugu mahadsan yihiin. taa marka laga yimaado waxaan tacsi u diraynaa dadkeennii mujaahidiintii ee ku geeriyooday degmada Boorama. tacsi ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo. amiin. kuwa kale dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. intaa kadib waxa weeye waxaan la dareennahay, iyagaa la dareennahay. ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi, Ugaas Cabdirashiid, baaqii ka soo baxay ayaan diyaar u nahay inaan fulino. guutooyinku taas yaa u taala inay fuliyaan. cidna duulimaadku ma aha. beelaha Abrayn ee gobolka Salal cidna duulimaadku ma aha. waxay ajiibayaan ugaaskooga iyo ajiibayaan hadalkii ka soo baxay. ciddii dhulka ku soo xadgudubta na way difaaci doonaan hadduu ilaahay ka dhigo. maatidii ku dhimatay, hooyooyinkii hablihii ku dhaawacmay, shahiid bay ahaan intii dhimatay Allah u naxariisto. inta dhaawacana Allah boogadhayo. dareenka ficil waxa aan la qaadanay oo aan ka mid nahay beelaha Gadabuursi. waxaan qaadanay baaqii uu ugaas ka ciisuhu jeediyay, ugaaskeeguna uu ka gudoomay. gudoonkiisii baan nana qaadanay. waxaan leeyahay dee laba bas baan kala fuulay, ballanna waa maalinta ay isku dhacaan. adna kaagii baad fuushay, anna kaygii baan fuulay. cid inaguma ceebsan karto. cid duulimaad kuma yihin. deegaan ahaan iyo dadnimo ahaan, dhaqan ahaan iyo qolo ahaan cidnaba kuma nihin.
tani waxay ku tusinaysaa in kacdoonka magaalada Boorama uu yahay mid gebi ahaanba laga shaqeeyey oo dowladda shisheeye ay gacanta kula jiraan sababtoo ah haddii xitaa dowladdii xeerka ciise ay joojisay weli waxay u muuqdaan arrimahan kuwa faraha ka sii baxaya oo marba marka ka dambaysa gebi ahaanba dadku ay doonayaan isbeddello waaweyn oo ay qayb ka tahay sidii Somaliland looga saari lahaa guud ahaanba magaalooyinka ay kaga sugan yihiin galbeedka Somaliland waxaana arrintan hadda ay muujinaysaa warkii ka soo baxay taliska ciidanka militariga Somaliland ee ahaa in ay jiraan gacmo shisheeye kuwaasi oo ku lug leh dhibaatooyinka waqti xadirkan ka taagan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo guud ahaanba deegaanada galbeedka Somaliland dhinaca kalena xeerka ciise waa tii la joojiyey laakiin odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee beelaha ciise waxay leeyihiin annaga haddii aan beesha ciise xeerka iyo xafladuba waa kuwa laga hirgelin doono galbeedka Somaliland si gaar ah gobolka lagu magacaabo Salel magaalo madaxdiisa Seylac beesha ciise odayaal dhaqan ayaa si toos ah warbaahinta ula hadlay waxayna ku baaqeen dagaal ka dhan ah cid kasta oo ka hor timaada hirgelinta buugga xeerka ciise waxayna yiraahdeen waa qasab waa in la hirgeliyaa buugga iyo xeerka ciise xilli dowladda Somaliland ay ku dhawaaqday in si kumeel gaara loo hakiyey madaxweyne Cabdiraxmaan Ciran wuxuu doonayaa in wadahadal uu dhex dhigo beelaha ciise iyo Samaroon wadahadalladaasi oo ay garwadeen ka noqon doonaan odayaasha dhaqanka beesha dhexe ee reer Sheekh Isxaaq waxaana la doonayaa in arrintan gebi ahaanba lasoo gabagabeeyo waxaana leeyahay ilaa iyo hadda dowladda Somaliland kama aysan hadlin dhinacyadan isku goodinaya waa ciise iyo Samaroon beesha Samaroonna si cad ayay waxay u leedahay xeerka ciise haddii laga hirgeliyo magaalada Seylac dagaal ayaan ka xignaa oo xeerkan waxaa la doonayaa in dhulkeena lagu qaato sida ay hadalka u dhigayaan xaaladuna haatan waxay u muuqataa ayaa leeyahay mid marba ka dambaysa faraha ka sii bixi karta iyadoo Somaliland weli isku daawanaysa dhinacyadan wararka qaar sidoo kale waxay sheegayaan in Somaliland tallaabooyinka ay qaaday qayb ka yihiin xuduudda amnigeeda oo si weyn loo adkeeyey waxaana ciidamada Somaliland inta badan ay soo xireen xadka labada dhinac Djibouti iyo deegaanada galbeedka Somaliland iyadoo oo ciidamo sirdoonka lexsan la yiraahdo lagu soo daadiyey qaybo badan oo ka tirsan deegaanada galbeedka tani oo ka dhigan in Somaliland ay si weyn u doonayso xakameynta dhibaatooyinka kaga imaan kara deegaanada warar aan la xaqiijin sidoo kale oo qirayso qaar ka mid ah warbaahinta Somaliland waxay leeyihiin madaxweyne Cabdiraxmaan Ciran waxa uu ku sugan yahay magaalada Djibouti ee caasimadda waddanka Djibouti halkaasi ayuuna wadahadallo kala duwan waxa uu kula leeyahay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle inkastoo warkan aan si dhab loo xaqiijin karin madaxweyne Geelle ayaa weli waxa u muuqdaa nin faraha kula jira arrimaha Somaliland waxaana la leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle marna uma doonayo in uu ka baxo arrimaha deegaanada galbeedka sababtoo ah waa qorshe ballaaran oo lagu ballamay in gebi ahaanba lagu burburiyo Somaliland galbeedkeeda iyada oo dhawaan siyaasiyiin u dhashay Djiboutina ay arrintan si toos ah ugu dhawaaqeen iyagoo yiri Ethiopia si la mid ah Djibouti iyo Soomaaliya ma doonayaan Somaliland nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka ka hana qaaday iyo xitaa ugu yaran in la aqoonsado arrintan ayaa leeyahay waa xaasidnimo iyo sidoo kale uu quuri waay Somaliland loo quuri waayey horumarka ay ku tallaabsanayso marba marka ka dambeeya laakiin madaxweyne Cabdiraxmaan Ciran ayaa waxa looga fadhiyaa in arrimahan uu idil uu ka dabaasho sidoo kalena uu siyaasad ciyaaro waxaana Ciran ku waajib ayaa leeyahay siyaasadda uu hadda ciyaaraya madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharac oo kale inuu ciyaaro sharac waxaa la isku dayay in dalkiisa la dumiyo in dagaal lagu qasbo laakiin arrimahaas oo idil waa uu ka dabaashay waxaa leeyahay waa in Ciran uu wax ka barta Ahmed al-Sharac uu ka dabaasho dhammaanba dhibaatooyinka iyo fuustooyinka waqti xaadirkan kaga imaanaya dalalka dariska la Somaliland